السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور فتاح عبد الله جامع kana mid ah dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaalka takhasusiga tacliinta ee Dalmar. Waxaan rabaa halkan inaan bulshooyinka Soomaaliyeed aan ka dhaho Ramadaan Mubaarak anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhammaan dhaqaatiirta ee howlwadeenada ka shaqeeya isbitaalka takhasusiga tacliinta ee Dalmar. Maanta oo soonka noo yahay maalinta shanaad waxaan rabaa inaan ka hadalno wax yar ka sheegno xanuunkan loo yaqaan gaaska ama loo yaqaan gastritis inaan ka hadalno. Gastritis sida ognahay waa xanuun ku dhaca caloosha. Gastro waxaa loola jeedaa waa caloosha waaye. Itisna waa inflammationka ku dhaco caloosha ku dhaca waa. waxyaabo badan keena markii laga hadlayo waxaa keena ugu badan wadamadan Aasiya iyo wadamadan oo loo soo sheegay metaatuska waxa uu keena ama dhaqaalooda uu hooseeyo wax ugu badan uu keena waxa waaye bakteeriyadan loo yaqaano ilma aragtada loo yaqaano H pylori taas inta badan keento waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa kamid ah qofka inuu aad u isticmaalo ama isticmaalka alcoholka oo kale keeni karo waxaa keeni kara isticmaalka faraha badan ee daawooyinka loo yaqaan NSAIDska sida aspirinka oo kale waxaa kale oo keeni kara waxa loo yaqaano stresska ama walwalka qofka waxaa kaloo keeni kara waxaa loo yaqaano in caloosha jirka uu isweeraro ama caloosha qayb kamid ah in uu weeraro jirka oo loo yaqaan autoimmune gastritis taas inta badan waxay weerartaa cellskan loo yaqaan unugyada loo yaqaan parietal cells kuwaas oo door ka ciyaara inay soo daayaan dhacaanka ugu muhiimsan caloosha ee loo yaqaan HCl ama hydrochloric acid kaas oo door weyn ka ciyaara dheefshiidka raashinka kaas marka hadii la waayo waxaa imaanaya in cellska ay baaba'aan oo cellska ku dhaca waxa loo yaqaan atrophy parietal cells inay baaba'aan dan hadii la waayo waxa ka dhalanaya wax loo yaqaano in la waayo soo deesmada HCl-ka oo hydrochloric acid-ka oo halkaas waxa ka dhalanaysa xaalad loo yaqaan high chlorhydria iyo in la waayo factor muhiim ah oo loo yaqaan intrinsic factor kaasoo muhiim u ah in vitamin B12 alifka jirka uu qaadanayo absorptionkiisa ama dhuuqitaankiisa uu ka dhacayo meeshan loo yaqaan ileumka in la waayo taasna waxay keeni doontaa hadhowti dhiig la'aanta qayb kamid oo loo yaqaan megaloblastic anemia especially xaaladan oo kale waxaa loo yaqaanaa pernicious anemia lahaa marka waxaan ka hadlaynay waxyaabaha keena gaaska waxaan soo sheegnay bakteeriyada ilma aragtada ah ee loo yaqaan H pylori waxaa kaloo keeni kara xanuunkan qofka inuu alcohol badan isticmaalo isticmaalka daawooyinka sida oo loo yaqaan NSAIDska oo kamid yahay aspirinka in qofka maxay ahaydeen oo isticmaalo jirka inuu isweeraro iyo wax kamid ah iyo wax lamid ah maxaa qofka xanuunka qabo maxaa lagu arkaa muxuu ka cabanaa inta badan markay xarumaha caafimaadka noogu yimaadaan xarunta noogu yimaadaan waxay ka sheeganayaan bog inuu aad u xanuunayo in laabur ay dareemayaan wax loo yaqaan heartburn sometimes ay ku leeyihiin waxba igu soo rogmanayo lalab inay ka sheeganayaan dadka qaarna matag leeyihiin intaasay ka sheeganayaan intaa kadib waxaan rabnaa qofka xanuunkan qabo markuu noo yimaado maxaa u sameynaa marka haddii qofkan waxay ku xiran tahay qofka xaaladda uu ku imaanayo haddii qofkan uu leeyahay matag iyo wax lamid ah waxaan u sameynaa daycare wax loo yaqaano way ka cawdaan waxa ugu daran oo la baaro inta badan waxaa la baaraa bakteeriyada loo yaqaano H pylori waxyaabaha kale autoimmune sidoo kale baaritaan waa loo sameeyaa stresska iyo wax lamid ah waxaa ku ogaan kartaa history markaa qaadayso intaa kadib waxaan siinaa daawooyin hadba markii la daaweynayo gaaska waxaa lagu daaweeyaa wixii keena markasta waxaa loo yaqaano underlying cause-ka la daaweeyaa haddii H pylori keentay waxaa loo sameeyaa waxa loo yaqaano eradication therapy in la cirib tiro ayadoo la isticmaalayo laba qaab mid loo yaqaano triple therapy iyo mid loo yaqaano quadruple therapy in la isticmaalayo waxaan rabnaa ka hadalno soonka iyo maxaa ka dhexeeya iyo gaaska inta badan qofkan gaaska qabo wuxuu la mid yahay dadka kale laakiin waxaa maadaama maanta dhan la sooman yahay waxaa jiro waxyaabo kordhinaya tusaale kale waxaa talada ku aadan qofka sooman ee qaba xanuunka ama la ildaran xanuunkan loo yaqaan gaaska talada aan siinayno waxay tahay kow marka hore marka afurka bilaabaysid inaad ku bilaawdo biyaha caadiga ah iyo timir inaad ku bilaawdo intaa kadib daawooyinka aad qaadato kadibna waxaa laga rabaa in aadan hal mar cunto badan qaadan cuntada badan aad qaadinaysa naftirkeeda waxay kicinaysaa in xanuunka uu kicisa u badan tahay soo marka waxaa laga rabaa inaad qaadato cunto yar laakiin aad badiso noqnoqodka ama afqalad wax lagu yiraahdo frequency inaad badbadiso laga rabaa qofka sooman maxaa ka reeban inuu qaato raashin inuu cuno maxaa ka reeban in waxyaabahan shiilan inuu cuno oo ku bilaabo cuntada waxaa ka reeban waxyaabahan saliid ku badan tahay lama ogola inuu ku bilaabo afurkiisa basbaaska oo kale looma ogola cabitaanada la shiiday sida leynta oo kale ayadana waxaa la yiraahdaa way ku kicisaa looma ogola ayadana soo marka waxaa la rabaa raashinka uu qaadan inuu yahay raashin dheelitiran ka fog ama ka dheer wixii aan ka hadalnay oo ahaa saliida badan iyo dhalaanka zaa'idka ah waxyaabaha dhalaanka zaa'idka ah haddii ahaan lahayd waxyaabahan basbaaska oo kale inuu aad uga taxadiro oo iska ilaaliyo
raashinka caadiga ah wuu qaadan karaa balse inta aan soo sheegnay waa inuu taxadar weyn ka sameeyaa. dadka muxuu kaga duwan yahay asiga? waxaa la rabaa asiga inuu tartiib tartiib u qaataa la rabaa cuntadiisa oo noqnoqodka inuu badiyo. haddii noqnoqodka uu badiyo waxay keeni doontaa in culayska badnaa ka imaanaya inuu yaraado. soo marka waxaan ku boorinaynaa qof kasta ee ka mid ah bulshooyinka muslimiinta ah ee sooman gaar ahaan Soomaaliyeed oo la ildaran xanuunkan gaaska ah in talooyinka aan soo sheegnay inuu qayb inuu raaco. haddii talooyinkan uu raaco insha Allah tawfiiq Ilaahay la kaashado uu ka badbaadi doonaa in xanuunkan culays badan uu geysto. qofka xanuunkan qaba ama sooman ama aan soonayn haddii daawada uusan qaadan control xagga cuntada uusan sameynin maxaa ka dhalan karo? waxaa ka dhalan karo waxa loo yaqaano complicationkiisa waxaa waa in gaaska uu raago oo anaa ka dhalata xaalad loo yaqaano chronic gastritis inay ka dhalato. taasna ognahay dhib badan inay keento oo waxa ugu daran ay keenaysa ay tahay peptic ulcer. hadhowna waxaa ka dhalan doono xaalad aad u liidata oo loo yaqaano gastric cancer kaasoo hadhow qofka khatar u geli doono oo xataa heer uu gaari doono dalkan wax looga qaban. xitaa adduunka haddii laga xataa radiation iyo waxyaabo palliative therapy loo sameyn doono balse xaaladiisa markasta uu ku jiro khatar. markii laga hadlayo peptic ulcer qofka markuu gastritis caadi qabo inta badan ma lahan inuu matag ama inuu dhiig ma tago, laakiin haddii qofkan xaaladaas uu gaaro waxay keeni doontaa in caloosha dhaawac uu gaaro. dhaawacaas marka waxaa loo yaqaanaa peptic ulcer wuxuuna keeni doonaa markii qofkan uu matagayo ama inuu qofkan dhiig ma tago ama gadaal dhiig ka imaado. xaaladaasna xaalad khatar ee waaye u baahan qofka inuu ka taxadaro. waxaan looga hortagi karaa in qofkan daawada joogto uu qaato talooyinka cuntada ka siinana inuu sidee tahay qofkan ugu dhaqmo.